Dr. Mustafa Kamal Maxamuud Xuseen oo ahaa dhakhtar faylasuf suxufi caalami ah oo u dhashay waddanka Masar ayaa waxa uu nuqul ka mid ah qoraaladiisa kaga hadlay muddadii uu ifka ku noolaa dhibaatooyinka kala duwan ee uu insaanka la tacaalayo, qanaaco la'aanta iyo nusqaanta taalla adduunka. Xitaa haddii aad heer sare ka gaarto nolosha, midka ku nool saxaraha bartankiisa waxa uu si daran kaga cabanayaa inuusan haysan biyo nadiif ah, kuleyl iyo qabowna u dhaxeeyo, dabaylo xoog badanna marba dhinac kaga imaanayaan, aan habeenkii la socon karin, baqdin laga qabo bahalo dadka dila ama naafeeya, oo godad waaweyn ka qotay waddada dhex bartankeeda, kuwaasi oo aan la arki karin ilaa ay jidhkaaga qaniinaan mooye. Kan degan magaalada ee biyaha fiican helaya, iftiinna ugu xiran yahay gurigiisana ku xirtay mukayf ama qaboojiye gudbiya kulaylka iyo qabowga si uu isbeddelka cimilada uga gaashaato, isticmaalo taleefan qaali ah, daawado muuqaal baahiye lagu soo bandhigo dhacdooyinka cusub caalamka ka taagan. Waxa uu ka cabanayaa dheefshiid xumo, kaadi macaan, dhiig kar, wadne xanuun iyo welwel. Waxa uuna baratan ugu jiraa sidii uga adkaan lahaa caqabadaha ku hareeraysan nolosha ee durbadiiba goosanaya qofka haddii uu mar qura nolosha ka dhaco. Taajir malaayiin dollar haysta ee ku nool caasimadda Paris ee hirgeliyay wax walba oo riyadiisa ah ama uu ku hamin jiray markii uu yaraa, waxa uu had iyo jeer ka caban jiray walaac qalbigiisa buuxiyay, hurdo la'aan baahsan, waxa uuna qarka u saarnaa in uu isdilo si uu raaxo yar u dareemo. Halka kan caafimaadka qaba ee xaaska wanaagsan nasiibka u yeeshay uu raadinayo sidii uu maalqabeen u noqon lahaa, isagoo aan marnaba ku qancin nimcada ballaaran uu haysto. Kuwa magaca weyn ku leh adduunka dacalladiisa ee guulaha taariikhiga ah gaaray, sida ciyaartooyda, feeryahanada ama kuwa lagdanka ciyaara, waxay ku guuldareysteen in ay naftooda xakameeyaan. Waxay badankooda aad u cabaan khamrada, sidoo kale daroogada ayay isticmaalaan, waxaana asiiba ama ku dhaca cudurrada halista ah sida dhiigga maskaxda ku furma, kansarka laleemada oo ah xanuunka ay alaaba u dhintaan markay ajashooda soo dhammaato. Isku soo wada duuboo, waxa aynu maanta ku noolnahay duni imtixaan ah oo aakhirkeeda aan la saadaalin karin, balse aad adigu dooran karto meesha aad ku dambayn doonto. Taasi waxaan ula jeedaa in marka hore aad ku qanacdo qoraalka Alle xaggiisa ka sugnaaday, hoggaansanaato oo aad naftaada hagaajiso, raaligeliso Rabbiga ku abuuray, isla markaana aad ogaato in safar nahay oo ay geeriduna wada sugayso goortay ahaataba. Intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkeena gaarka ah aan kusoo qaadanay faylasufka reer Masar Mustafa Kamal Maxamuud Xuseen. Hadduu muuqaalkan ku cajabgeliyo, fadlan subscribe oo na share garee asxaabtaada.